ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، marka hore sheekh iyo caalim iyo daaci saddexdaa erayba waa ka cudur daaranayaa. runtii sheikhul cilmi iyo sheikhu sinni labada midna ma yihi, daacina ma yihi, caalimna ma yihi. haddii laga maarmi waayo waxaa la dhihi karaa muballiq. muballiqu waa qofka wax loo soo dhiibay, wixii loo soo dhiibay ummadda u sheegaya. wixii annagu culimmadeenna aan ka maqalay ee cilmi ah, ee khayr ah, ee wanaag ah, ee dhiirigelin diineed ah, baan dadka walaalaha iyo gaadhsiinaa si ilaahay annagana noo hadeeyo oo noo islaaxiyo, iyakuna ay u islaaxaan. marka jazaakum allahu khayr baan leeyahay dadkan macallimiinteenan madrasadan gacanta ku haysa iyo dadka xaafadaba. saad noo soo dhoweyseen waa ilaahay baa abaal iyo ajar inaga siinaya. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحكامت إسلام كإلهي وحو نوغو سو دجيي si aan adduunkan iyo aakhira ay nolosheennu noogu hagaagto. awlaadda aan haysane ilaahayna siiyey iyo hantida adduunyada dultaalla ee qof walba uu haysto intuu doonay ha ka haystee, ayadana waxaa loo siiyey si laynoogu imtixaamo. shay waxaa lagu siiyey si aad ugu liibaanto oo noloshaada adduunyada iyo aakhiradu ay ugu hagaagto, ugu toosto. shayga kalena waxaa lagugu siiyey adduunka intaad joogto lagugu siiyey si adduunka dusheeda lagugu ikhtibaaro, lagugu ibtileeyo. qur-aankaana inoo kala sheegay oo yidhi: laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluuna baa ilaahay yidhi. laqad anzalnaa waan soo dejinnay ilaykum xaggiinna kitaaban baan nii soo dejinnay baa ilaahay yidhi. kitaabka qur-aanku waa munazal, fiihi dikrukum. kitaabkaa dhexdiisana waxaan ku dhex dhignay oo dhexdiisa ahaaday baa ilaahay leeyahay sharaftiinnii iyo karaamadiinnii baa qur-aanka ku dhex jirta ilaahay yidhi. afalaa tacqiluun, miyaanad dad caqli la-aanad ahayn baa ilaahayna leeyahay. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال با إلهي إليها إنك لما هي حولهنا يا أولادين وفتنة ويان. إلهي أكتي سنة واحد كالذين با إلهي أجر وين يا مش قايد وين بات كالذين با إلهي فتنة وحال إلى هدفك أدونك إلهي كوك إن الشيء كان مشغولية أيا فتنة ليلة فتنة. marka awlaadu ayakoo nicmad haddana mar walba nicmad ay tahay ilaahayna siiyey, haddana waa fidnad weeyaano waa laynagu fidnaynayaayo mar walba qalbigii xaggooda ayuu aadayaa. salaada dhexdeedii baad ku xasuusan, qur-aanka adoo akhrisanayaad ubadkaaga xasuusan. adduunyada kale dukaan hadduu qofku leeyahayna salaada dhexdeeda laga yaabaa inuu dukaankiisa ku xisaabiyaba. marka fitna waxaa la yidhaahdaa waa waxaa hadafkii adduunka alla uu kuu keentay kaa leexinaya fidna la yidhaahdaa. marka axkaamta ilaahay wuxuu noogu soo dejiyey. axkaamtu waa maxay? iimaanka, iimaaniyaadka iyo cibaadaadka
iyo maaragtaanay mucaamalaadka iyo mucaasharaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo alxukmu walqadaa waa inta ay shareecadda islaamku ay ku fadhiday weeyaan. intaa shareecadda islaamku kama baxsanay bay culimmadu leeyihiin. iimaaniyaad waa alcaqaa'id, qalbiga iimaaniyaadku ayay ku tacalluqaan. in dadku ilaahay ay rumeeyaan oo malaa'igta ay rumeeyaan oo rususha alla soo dirayna ay rumeeyaan oo kutubta ilaahay soo dejiyeyna ay rumeeyaan oo maalinka aakhirada ee dambaysa yowmal qiyaamahana ay rumeeyaan. khayr iyo shar waxa adduunyada ka dhacayana inay rumeeyaan inuu ilaahay qadaray. cibaadaadka salaada ayaa ka mida, oo soonka ka mida, oo sakada ka mida, oo xajka ka mida, iyo wixii kale ee soo raaca faraa'id kale iyo sunan kale ee iyakuna waa cibaadaada ilaahay loogu dhowaanayo. mucaamalaad waxaa la yidhaahdaa dhaqanka adiga iyo mujtamaca aad ku dhex nooshahay nigala dhexeeya mucaamalaad la yidhaahdaa. dadka aad dariska aad tihiin iyo dadka aad shaqo adduunyo ayna dhex marto iyo dadka mucaamalaad oo ayna dhex maraan, ama dadka aad wada shurukowdaan, dadka aad la ballantid, dadka maaragtaane saaxiibada aad tihiin, inaad akhlaaq dhaqan wanaagsan oo diiniya aad mar walba kula dhaqantaa ayaa mucaamalaad la yidhaahdaa. mucaasharaadkuna waa nolosha aqalka dhexdeeda weeyaane qoyska, sida ninku naag xaaskiisa ula dhaqmayo, sida xaasku xaaskeeda ula dhaqmayso, sida ilmuhu aabbihii ula dhaqmayo, sida ilmuhuna aabbihii hooyo ula dhaqmayo, sida walaashu walaalkeed ula dhaqmayso, sida qaraabada loola dhaqmayo. mucaasharaad noloshaasi cishra la yidhaahdaa. akhlaaqiyaadkuna waxa weeyaan khalqigan ilaahay nagula abuuray adduunka oo dhan waa inaan xuquuqdooda iska ilaalinaa, akhlaaq wanaagsanna aan kula dhaqanaa. alxukmu walqadaana waa maxay? waa in shareecadda islaamka la fuliyaa oo dadku sharciga islaamka ay ku dhaqmaan ay ku camal falaan. marka axkaamtaasi ayaa bini aadanka ilaahay u soo dejiyey. hadday dadku axkaamta ay raacaanna way hagaagayaan, adduunkooga u hagaagi, aakhiradooda ayaa u hagaagi. hadday dadku axkaamta ilaahay soo dejiyey ay raaci waayaan, adduunyadooduna waa ka khasaare, way ka hallaabi, aakhiraduna way ka hallaabi. walaalayaal, oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegoo yidhi: man kaanat iddunyaa hamahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi wafaraqa allahu shamlahu walam yaatihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu. qofka hamigiisa ka dhiga buu nebigu leeyahay adduunyo, kaanat iddunyaa hamuhu, labada indhood dhexdooda faqriga baahi loo saaraa, umuurtiisana ilaahay barya galbeedba ku kala shaydhiyaa, umuurtiisoo dhanna waa la kala tuuraayo waa la kala daadiyaa. adduunyadana ma hela buu nebigu yihi ilaa wix ilaahay u qadaray mooyaane. qofka aakhirada ka dhiga hamigiisana ee aakhirada ilaahay wuxuu la hortagaya ka fikira, ee iimaaniyaadka iyo cibaadaadka iyo daacadda ilaahay ku dadaalana, faqriga ilaahay waa ka saaraa qalbigiisa oo qina ayaa loo geliyaa qalbigiisa. umuurtiisoo dhanna ilaahay jalla wacalaa waa iskugu soo ururiyaayo arrimihiisa waa la isku soo dhadhoweeyaa. adduunyaduna iyadoo dullaysan bay hoos timaadaa buu rasuulku yidhi. marka axkaamtaas qaar baa jirta axkaam rag iyo dumarkuba ay ka siman yihiin, oo waxaa ka mid a iimaaniyaadka. xagga iimaaniyaadka waan ka simannahay, oo iimaaniyaad ragga u gaara inay aaminaan oo dumarka laga dhaafay ma jiree. dumarkuna arkaan aliimaanka waa inay ilaahay iyo maaragtaane iyo wixii ka farcama iimaaniyaadka waa inay la yimaadaan. cibaadaadka kadaalika haween iyo ragba waa laga rabaa, akhlaaqda wanaagsana rag iyo dumarba waa laga rabaa. laakiin waxaa jira axkaam haweenka u khaasa ayaa jirto ragga aan khusaynin. axkaamta haweenka u khaasa waxaa ka mid ah waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi, gabadhu inay gurigeeda ku ekaato oo gurigeeda ay dhex joogto, oo axkaamta haweenka u khaasa weeyaan. oo aqalada haweenku 3 aqal unbay leeyihiin: aqalka aabbaheeday ku dhalatay, iyo aqalka ninkeeda, iyo qabrigeeda. 3daa aqal unbay haweenku ay leeyihiin, aqal afraad haweenku ma leh. laana 3daa meelood baa haweenka loogu talagalay inay ka dhexeeyaan.
aqalka aabaheeday ku dhalatay halkaasay ku jiri way ku barbaari waa lagu tarbiyadayn man caala jaariyatayni xataa tabluqa ana wahuwa ka haatayni fi ljanna buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka laba hablood ay u dhasheen ee barbaariyey ee koriyey ee tarbiyadoodana wanaajiyey baa rasuulku yidhi aniga isagu labadaa farood buu nabigu isku qabtay farta la yidhaahdo murdisada iyo fardhaxada labadaa farood buu nabigu isku qabtay calayhi salaatu wasalaam sida labadaa farood ay iskugu xigaan ayaa ninka laba hablood ay u dhalatay labadaa hablood tarbiyadeeyey ee tarbiyadooda wanaajiya aniga isaguna jannada sidaasaan isku nahay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam tarbiyadda aabbaha iyo hooyada ayaa tarbiyadda ka mas-uula inanta asbaabta lagu tarbiyadeyna waxaa ka kow ah inay inantu noqoto inan guri joogo aqalkeeda fadhida tabaruj aljaahiliya lama ogolo gabadhu inay ragga dhex socoto lama ogolo inay suuqa wareegtana lama ogolo inay bilaa astur aqalka ay ka baxdana lama ogolo dharkay qaadanaysana ilaahay baa qur-aanka ku sheegay waa axkaamta haweenka ayada labaadee u khaasa weeyaan xukunka koobaad waxa weeyaan waqarna fii buyuutikunna inay gabadhu ahaato gabadh gurigeeda joogto gurigeeda aanan ka baxaynin siirada waxaa ku taalla haween 40 sano aan aqaladooda ka soo bixin bay kutubtu sheegtay 40 sannadood dibadda ma istaagin baa lagu leeyahay qaar waxaa la sheegay 20 sano masalladii ay ku dul tukanaysay aanan ka dulkicin xafsata binta siriin baa ka mid ah radiallahu canha imaam maxamed ibni siriin walaashii masalladay ku dul tukanaysay 20 sano iyo dusheeda fadhiday baa la yidhi daraartiina way soomanayd habeenkiina salaatuleyl bay u taagnayd 2 marun bay masalladeeda ka dulkacaysay markay yar jiibsanayso oo meel dheerba ma tegayna masallada dhinaceegoonbay jiibsanaysay baa la yidhi iyo marka maaragtaanay bani aadanka xaajadu markay qabato ay u yarkacaan ay soo xaajoodaan labadaa xilli unbay masalladeeda ka dulkacaysaa la yidhi gabadha guriga inay joogtaan lagu ammaanay waqarna fii buyuutikunna waa sifadaasi waa sifo qaali oo qiimo badan weeyaan oo gabadha qiimay u yeelaysaa haddee gabadhu axkaamta ilaahay ay raacdo gabadhu qiimo yeelan oo qadar bay yeelan xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaama ilaahay xuur weeyaan waa xuurulcaynta ilaahay markuu ka waramaya sifaadka xuurulcayntu ay leedahayna sifada xuurulcaynta lagu ammaanay waxaa ka mid ah xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam khaymadahooday ku kooban yihiin oo kama baxaan baa ilaahay yidhi adigana waxaa lagu amray oo lagu yidhi aqalkay inanta muuminada gabadha muuminada iimaanka leh meesha lagu yaqaanaa inay ku qarsoon tahay mar walba fadhida waa aqalka maxaa gabadha muuminada aqalka ha fadhida loo yidhi waa dhayman bal dhayman bay ka qaalisan tahay waa dahab bal dahab bay ka qaalisan tahayoo meel adag baa la dhigaa waxyaabaha qaaliga diinta islaamku gabadha muuminada qaali bay ka dhigtay deedna meel adag bay diinta islaamku ay ku dhigtay halkaasaa calafkaaga ilaahay kuugu keenay kullamaa gabadha muuminadu bannaanka ay u baxdo way qiimo dhacaysaa baa la yidhi kullamaa inantu ay aqalka ay fadhido amarka ilaahay qaadatana qiimaheega ayaa kordhaya gabadha diinta ku dhaqantay diinta danaysana awlaadda ilaahay kasoo dhex saaraya caloosheeda badanaa waxay noqdaan awlaad culamaayo oo rabbaaniyiina bay noqdaan waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi waxaa kaloo nebigeennu uu ka digay sal allahu calay wasalam haween buu nebigu sheegay xilligiisii adduunka aanan joogin iman doona buu nebigu yihi aakhira zamaanka waa kuwa nuuceeya dhar bay moodeen inay xidhan yihiin buu nebigu yihi kaasiyaatun caariyaat way huwan yihiin dharkoo way xidhan yihiin laakiin waa qaawo yihiin buu rasuulku yidhi dharkay xidhanayaan baa dhar khafiifa ah ama dharkay xidhanayaan baa dhar ku dhajisan ah deedna cawradoodiibuu bannaanka dharkaas u soo saarayaa maa'ilaatun mumiilaat baa nebigu waa kuwo qalloocan oo markay dariiqa marayaanna way isqalloociyaan ragga meelaha joogana way qalloociyaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo siday raggu usii eegayaan ay isha ula sii raacayaan ayaa iyakuna la qalloocsamayaan kuwa noocaasa buu nebigu yihi jannada gali maayaan
carfiga jannadana heli maayaan buu yidhi. janno inay galaan iska daaye udgoonka jannadana heli maayaan buu rasuulku yidhi. udgoonka jannadana 500 oo sano meel jannada ay ka dhowdahay marka loo jiro ayaa la uriyaa buu nabigu yidhi carfigeeda. jannada inay galaan iska dhaafe carfiga jannadana kuwaas heli maayaan. zamankana waad u jeedaanoo bannaankaasee gabdho badan ay tuman yihiin ay u baxeen. deedna maaragtaan axaadiista nabigeena sallallahu alayhi wasallam baa ku cadaatay inay kuwa nabigu sheegaya iyaka ay yihiin. gabadha muuminada waxaa kaloo laga rabaa jilbaab inay qaadato. jilbaabku waa maxay? waa maro haddii ay xidhato bay culimmadu leeyihiin xaggeeda hore iyo xaggeeda dambe aan la kala garanayn, inay inan tahay iyo inay islaan duqa tahayna aan la kala garanayn. waa maro maaragtaanay ka weyn jidhkeega ka weyn oo gabadhu ay dhex soconayso. deedna maradaasaa ilaahay gabadha muuminada ku qiimeeyey. yudniina calayhina min jalaabiibihinna dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu gafuuran raxiima baa ilaahay yidhi. markay gabdhuhu ay xidhaan quruxdooda ilaahay casa wajalla u joojinayaa. hadday qurux u dhalatana quruxdeedii bay asturatay oo gaboobi maysa baa layidhi. gabadha jilbaabka qaadatay jilbaabka ku barbaarta quruxdeeda ilaahay waa u ilaaliyaa. maadaama amarka ilaahay iyaduna ilaalisay iyadana xubnaheega waa loo ilaalin. ixfad illaaha yaxfadka bay galaysaa. ilaahay baa yidhi xadiis alqudsi, xadiiskaa nabigeenna yidhi sal alla alay wasalam, ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin. hadday gabadhu shareecadda islaamka ay ku dhaqanto xoogeeda iyo quruxdeeda ilaahay baa u ilaalin. waxaa la arkoo la sheegay haweenay 15 ubada dhashay ayadiyo ubadkeegiina ay isku egyihiin isla egyihiin. hablehay dhashay dhex fadhiisatay hooyadood waa laga soo sooci waayey. dumarkii u tegay ee buuqday way ka dhex garan waayeen. ilaa lagu marmoo la yidhaahdo ma walaalaatihiin oo tan matiinii ugu weynaydba maya iyadii baa le maya waa hooyo weeyaan. markaasaa la yaabo lagu yidhi hablahaaga waad isku egtihiin, waad isku jidhna waa tihiin, maxay see wax u jiraan? waxay tidhi yaraantaydii dharkii la ii geliyey ayaan xidhanahay tidhood aqalna kama bixin bay tidhi. maadaamun amarka ilaahay anigu aan ilaaliyey ilaahay quruxdaydii iyo quwadaydiina isagaa ii dhowro u ilaaliyey tidhi. gabadha bannaanka hadday u baxdo waxay la mid tahay baa la yidhi oo ragga ay mar walba ragga hor soo socoto waxay la mid tahay fulka ubaxa yar ee geedka dushiisa ka baxa. hadduu ubaxaasi uu geedka ka soo dhaco uu dharaa baa la yidhi uu dharaa. deedna markaaba cadceedda ayaa iyo dabaysha ayaa saamaysa. laakiin ubaxu geedka dushiisa hadduu ku yaallo dadka oo dhan baa milicsanoo sidaasaa loo eegaya dhalaalkiisa iyo quruxdiisa oo isha oo dhan baa markaas il kastoo meesha maraysa way daymoon. waxaa la yidhi gabadhu markay shareecadda islaamka ay ku dhaqmayso quruxdeeda ilaahay waa u ilaalin waana u joojin oo quwadeedana waa ilaahay waa u dhowri. haddii laakiin shareecadda gabadhu ay ku dhaqmi weydo aqalkana ay joogi weydo dharka jilbaabkana ay qaadan weydo raggana kolba dhinac u hormarto sida ubaxa geedka ka go-ay bay la mid noqono 20 jirkeega gabadhaasi ma aragtaan ku foolxumaan markiiba. 20 jirkee ku buusbuuska waad fahmaysaan baan u malayn way foolxumaan khalaas. shareecadda diinta islaamka marka lagu leeyahay ku dhaqan adiga maslaxadaada ku jirta ogow. فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي أجشو أي كسو حاضرتي أي دمركي كتل الرئي مدينة ميت كيغا إلا أركم الربيع بل صداد ميت كيغا الرقا وقرين لهيدين كتلب بحية بكتلي بريقال ميت كيغا حلقو قادا أي سرير يرو قفك لدول لغو أو دانا كوركا سر الله سارو مركا الله قادنا قفك دقاقي سلا داريمو مركاسا أسماء بنت عميس رضي الله عنها وكسو نقطة مركا أرض الحبشة وجعفر بن أبي طالب حاسكي سيوياني آياتري أنيقا نعش كينا كدو ومبان أرض الحبشة كسو أركيو قفك اللقود دحريدايو لأن أفرت دنعنا مرة لك قحريو قفك أن لأركين بميت كيسا مركا فاطمة رضي الله عنها وحيتري كاس وشاق عليو يويل شيدو أنيقا كاها لأي سمايو لأن مركابة كيبا لو سميي مالين تيدي متنا كيبا لقو دحريد فاطمة أبهد
محمد عليه الصلاة والسلام سقال بلود أو كلية بالليل أما دور بلود أي كدم بيس أبيهد والنبي كان أوشيق عليه الصلاة والسلام مال المعلمها كميد النبي وحاسس كي سدح فديا أي فاطمة رضي الله عنها أتمدي أيضا صدى أبيهد وصعت أبيهد بسعود كي سلاحين لأن مركز أبيهد بيقدون كتي ودون كدي دكتو مركز النبي أرن السر أي الله سر يستي إسلام مركي بدت كهرت ودي كو أيدي هذا النبي وحول السعر دكت هذا فرين كلام كو شيء يوسر مركز أبو وشيء إسلام مركي بهذا ويق فرح ضوي قصة شيء مالين ذنبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيا كتري سرتي مالنتا أديك يا أباها إني قد حيسين مرنا لو أيدي مرنا أتكو فرح ذي بليشين وعيتر هو السر أنا يا أباها إني قد حيس أيا هيدو عندنا وشيء مايو فاطمة رضي الله عنها سرتي أنتو نبي قلنا ولا ما يسن شيء لأن ضدك عشان تربية بالله بري حفظ السر سرت الله بدو قف قد حيس ضدك كلا إلا شيء معها إلا دقيستنا معها laba qof oo sheeko wada labu nabigu yiri qofka dhageysta dhageysigiisa isagana ay karhayaan maalinka qiyaamee aakhiro cadaab naar naxaasa naar iyo dhagaha lagaga shubaab rasuulku yiri yusabbu fi udunayhi bu nabigu yiri aanuk hadal macnihiisu suha laba qof oo arin sira meel ku siraysanaysa qofka dhageysta bu nabigu yiri ayakuna dhageysiga arin sirtooda laga dhageysanay ay dhibsanayaan qofkaas qiyaamaha dhagaha naar naxaasa lagaga shubaab nabiga kaleey salaatu wasalaam Fatima radiyallahu anha markaas sirtii nabiga may sheegin intuu nabigu noolaa laakiin maalintuu nabigu adduunyada ka intiqaalay ayaa waxa uu yeedhay Aisha radiyallahu anha oo tiri arintii maalinta ii sheeg hadda waxay tiri hadda waa ku sheegay maadaama aabahay uu dhintay sallallahu alayhi wasallam adduunyada ka intiqaalay hadda waan ku sheegay marka hore wuxuu nabigu ii sheegay uu ila saraysteen la ooyay ajashiisii buu nabigu ii sheego wuxuu igu yiri waan socday anigu iyo Faaduma iska sabir marka labaadna wuxuu ii sheegay inaan ahay haweeneyda jannada ugu barwaaqo badan ee ugu nicmad badan inaan ahay buu ii sheegay xadiis kalena wuxuu nabigu ii sheegay tiri ha ooyina aamus buu yiri Faaduma ehelkayga qofka dhimashada iigu soo xiga waa adiga aamus buu nabigu ku yiri marka 8 bilood 9 bilood muddo yar bay ka dambeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintii dhimanaysana waxay ku dardaarmaysaa jirkeeda inaan la arkin markaas nacashkii ay asmaa ku soo aragtay Ethiopia ardul habasha ayaa loo sameeyay kiiba lagu dhaxriday marka dumarkii reer Madiina waxay u ducayn jireen Faatuma oran jireen Faatuma ilaahay adduunkan iyo aakhira ceebteeda allaha asture meydkayagina wayna asturtay bay yiraahdeen ilaa meydka barigoor waa la arki jiray haweenkii oo sariir ayaa la dul dhigi jiray qofku dusheeda u dhaqdhaqaaqayo ayadoo dhimatay oo naftu ay ka dhacday oo dambi xataa marka qofku de amalba ma sameynay hadee toole ayay ka digtoontaa in la arka jirkeyga oo dhaqdhaqaaqaya inakana maanta hablaha haweenkeeni qaarkood mid walba meesha yar jirkeedu ka qurux badan yahay ragga tusaysaaba ilaahay ha laga boqo haweenku waa cawro wadanada Asiyaatiga haweenka magacooda cawro yaadin cawra macnaha inaka cawrada meel baan u naqaanha cawrada raguna ma bayna surrati wal rukba laakiin haweenka jirkoodu dhanba cawra ma cadal wajhi wal kafayn labada gacmood iyo wajiga mooyaane inta kale oo dhan gabadha jirkeedu waa cawro in la arka ma dhar ku dhagsan inay xidhato ma dhar jilbaab leeyahay waa inay qaadatay quraanku uu sheegay oo markay socotiyo markay gadaal u socotiyo markay hor u socoto aan la kala garanayn qofka meesha maraya ma inan ba ma islaan aan la kala garanayn dharkan aad xidhatay ba qiimo ku yeelaya ugu ee ragga aad istusayso wax macna ay ku sameynaysa ma jirto qarba kul hadaan jilbaab qaato indha shareerna qaato oo ayaa ay garanayaan fool xumaayeen qurux badanahay hadday raggu wajigaaga arkaan hadii kala macna ma sameynaysa macnaha waxa sameynaya waxa weyn waa asturka Anas bin Ammar al-Asma'i ninka la oran jiray Anas bin Ammar inankiisii buu u yeedhay abihi baa u yeedhay isaga abihi Ammar baa u yeedhay Ammar al-Asma'i wuxuu Anasow aroos baa tahay buu caaw aroos waayahay aba
caqdigii baa dhacay soo maydhaa lagu yidhi dharkan xidhaa lagu yidhi caroosadiina qolkaabay ku jirtaa orada u galbaa laga yidhi alfirso inanka waa nin dhallinyaro ah gabadha ma arkin ayaduna may arkin gabadha isaga waxa u soo doortay reerkiisa inanka waxa u doortay waa reerkeeda halka inaka zamankeenan wiilashiya gabdhuhu biladhan lagu leeyahay way wada sheekaystaanoo way isla socdaanoo way isla hadlaanoo way wada xidhiidhaanoo maxay ka xidhiidhayaan waa macsiyo xidhiidhkaasi waa macsiyo is-aragays arkeenna waa macsiyo khilaafa shariica weeyaan waxaasoo dhanba shayga arooska haddii khilaafa shariica lagu saleeyana baraka ma yeeshay ogow waa waxa zamankeenan dhallinyaradu nooca kale u wada noqotay leanno arooska aabihii hooyadii baa sax ahayn marka horeba oo macsiyo lagu dhisay dadna dad cusaada markaa dhalanaya dad غافلين oo qafladu ku badan tahay baa mujtamaca ku soo badanaya laana markii la dhisay reerahan diin lagu masalaynin alla ka cabsi alla ka baq asaas loogama dhigine nidaamka gaalada ee fasaadka ayaa asaas looga dhigay dadna mufsidiin bay dhalayaan marka ubad mufsidiin oo mujrimiin dhalanaya maanta oo wada dhanxiira inakii uu ku qancay aabihii hooyadii taladay u soo jeediyeen aqdigii baa dhacay aqalkii buu galay aroosadii baa fadhida uu salaamay salaamu calaykum waxay noqotay inan yaroo gaaban oo isaga aanan cajabin xagga quruxda isaguna nin dheer buu ahaa oo laanka la eego qurux badan buu ahaa markaa buu ka naxay iyadii baa markay aragtay ninka quruxdiisa iyo dheeridiisa iyada ninkan uu qabatimay baa la yidhi laakiin isaga ma qabatimin gabadha baa la yidhi dadna markaa iyadii baa ku tiri hamurugin bay ku tiri hamurugoon waxaa laga yaabaa ilaahay khayr inuu ka soo dhex mariye hadalkeegiiba ku qanco wuxuu is yiri kolley aabahaayo hooyada inantan waxay kuugu dooreen waa khayr ay ku og yihiin iska barakayo iska bismilayso habeenkii u horeysay leeladu zafaafkiiba uu la seexday ilaahay habeenkiiba uu aqbalo caloosheedii durba ilmaa ilaahay geliyey ilmahay dhaleen wuxuu noqday imaam Malik bin Anas buu noqday imaam daar al-hijra imaam Malik rahmatullahi alayhi عالم المدينة أفرتن سنو مسكيت كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ودروس حديث كالليلة علم الحديث كأيو أمد كبر أيي أفرتن كاسنا نبالي الإمام كاسي مقالة المدينة نحن ذكبكم قادا مركي الليل محاد كبها وحدا الله دعينا وحو أورنجري ما ماشى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا لبدي سي صاحب أي هوستي ذا كجران ميان كبكدل سعونا يا أبو أورنجري إن أنتي iyo wiilkii aabihii hooyadii u hoggaansamay amarkooda waxay ku curteen caalim cilmigiisu adduunka dhan uu buuxiyay ilaa qiyaamaha dhan loo duceynayo madhab imaam Malik baa waa imaam dhan oo madhab leh bal sheekheena Shaafici rahimahullah waa macallimkiisii wax baray weeyaan wuxuu noqday macallimkii imaam Ahmad buu noqday aimada islaamku sidaas ay wax isku barayeen oo kala faa'iideysanayeen gabadh barakaysan wiil barakaysan bay dhalay walad mutiica oo ilaahay adeecsan oo labada waalid adeecsana awlaad bariyana ba ilaahay isagana uu siin سعيد بن مسيب رحمة الله عليه شيخ الحديث محدث في مدينة أيا إن أنتي سنة عالمات بيهي علم الحديث كآد تقاني والله اسكو الشيخي والله يدي شيخة إن أنتي سوى وقبر وناكسن قروح بيلاد هاي دين إلهي وكو قرحيو وعالمات وعلمك بيهد كقادتها معاوية أيام مغلي الله ونحرسته إمام أمير كمؤمنين معاوية ومركز الشام جوغا oo dawladda islaamka oo dhanna ma aragtaan amiir u ah ayaa maqlay dadna markaa uu soo dirtay ergo wuxuu yiri imaamkaasi ma aragtaan Saciid bin Musayyib waxaad ku tiraadaan inantiisa hanna siiyo oo inankaygan u dhisayaaye Saciid bin Musayyib waa iska diido wuxuu yiri inantayda amiirka muuminiinta inankiisa anigu ma siinayo raali hayga noqdo buu yiri maanta inagu madiida lahayn in madaxweynaha hadii ilmihiisu inantaadu ka soo doono adoo faqiir oo miskiin dhex fadhiya madiidaysid bal waxaad oran lahayd leelatul qadar baa yimidayba ila dad adduunya dadku noqdeen maanta
إمام كادن المسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كأمة أوجا آخرنا يا إن أنتي سي محدثات ده هيد وحى صادوني أميرك المؤمنين تي دولة الإسلام كمركا أدونك حل معاوية دولة الإسلام حل أي كتيب بدنيد أو أي كعيدا بدنيد أو كدقالة بدنيد أو كدل بلارنيد ما سومرين بالي تاريخ لأن الزمن كي معاوية زمن الفتوحات بوها dadkoo dhan baa la yaabay imaamkii dad badan baa yiri ya sheekh gabadha si amirkii muuminiinta amarkiisa hadiidan inankiisa si wuxuu yiri ma siinaya buu yiri wax maxaad u siin weydaa lagu yiri boqor dhan baa inankiisi u doonay gabadhaade adaaba nasiib leh markaas yiri wuxuu yiri inantayda marka aanu dhisay inanka Muawiya ee qasrigii Muawiya ee Dimashq ku yaala inantayda la geeyo أي صد حبلود حقا صد حبلود تيمه أنتي قبطان تيمها وتدعان حقا كلنا صد حبلود أي خدمه وخدمه خدمين يا أي خدميان كبيه يجنا الله قاعدو در كيدنا دول كسد الله قاعدو دين تيدي سومد ضيعين بول هالكي دين تيد مري بوكيد أنت هيدا مركز سو علمي أن يران تكبر اللوبي ميسو هالمامي ميسو وكدي ذا إنوسي ونكرر قاجي أرضيديسي كمدها أيال شاخيبة وكواي مركا درسي فلان أوي يقولوا واحد فلان حاسكي سيبا كجيريوتو هاوشي بكجران آسكي مركاسو شيخ درسي انتو جوجيي إساقي الطلبات ينتيسا صورة عام بآسكي كسو قيب قلان لأن مركي آسكي لغا سو نقضي أيو أرضيكي كويري صبري إيمان الله كاسيو وتعزيدي وحاو كويري إن انت يدينا وكود دياري مركا ديار قرود وكالو يقرسو كيلي الفرس فعلا معاوية ويلكيسي وأودي ذا إنتيسي أرضيها إنتو أي كجيريوتي أرضي دي سكمة دهانا إنتيسي وأود سيب اللي بقر ويل ودلنا وأودي ذا إنتي حرو حرتيسي كمة دهانا قبل دي سوسي لأن دتك أدوية كم فكرين آخرة ذي كفكرين قفك الدين تيسي إيجين إذا آتاكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه بالنبي قيري هدو إني ما دوقف الدين تيسا يطبع عديسا أتكرر لتهن أقوريا هذا دو قوري ويدانا أراد فساد يفندد حنبا كدع دون تبو رسول قيري قوركو الدين بي إيجيين طبع عدو وناكسن بي إيجيين هل كقور كان إنكو أنا إيجيين القبيل وقولما لعقنا ما هايستا سو مارد الله بضا بيقفكو ويديسا عمك ورنيك قبل دايقة صوت دوني وقولما وقبيل كي إلا قبيل بدينو نقطة الصومالي ما انتهي تقول دقالنا محو هايستان العق والله العق ما هايستان بسكيتكو علمك كردكتا لما كتبتو سين بكورن حسين وأودي دي بعدو دون قوري قال الربا قبل إني جوكتو وحي علف إلى هاي هالكا وكو كانو أي كو قناعدي كو أسطورتو أي كو صبرتا الله بحنيه قبل مؤمنات دا صابرة صادقة أبهد هويدنا أضيعسنا بارية أو أدتكيجا إلهي جل وعلا أولاد إذا وحكس وصار علماء إلهي كسود حسارة علماء صفة كلا دمرك أحكام تهوينك أخاس كوحكم ذا كذلك حكم لا يد هذا مارك ثاني طاعة الزوج يعني هوين يدو أي ننك يدا أي أضعضو طاعة والنبي قالنا شيء عليه الصلاة والسلام نكون ناكتي سهدو ويردو اسكديدو واقوحو أبر يابو النبي يقول يدو إلهي وعلي سيحي ملايكتنا إلا عنا دايسو هدان أمر لهابو النبي يقول عليه الصلاة والسلام قف بني آدم وسيدي سائنو أسجد وحان كو أمر لها هوين يدو ننك يديني أسجدان أمر لها برسولك يلي لكن سجود إلهي مباسكال عدك إن لو سجود ما بنانو بني آدم نول إن لو سجود ما بنانو كو قبر كجرنا وركي سيس كدابا سجود إلهي باسكاله لأن السجود وعباده دول إصدق بالله دول إصدق halka jirkaaga ugu jeceshahay jabhadaada ilaahay u dhig ilaahay geerkii halka in loo dhigo uma qalmaan bal makhluuq uma qalmaan halka dhulka in loo dhigo
marka haddii laakiin ay dhici lahayd buu nebigu leeyahay qof inuu qof u sujuudo aan amar ku bixin lahaa xaqa ay raggu haweenka ku leeyihiin buu nebigu tusinayaa miisaanka iyo culayska uu leeyahay waxaan amri lahaa buu nebigu yidhi haweenaydu ninkeeda inay u sujuuddo marka ilaahay tabaaraka wa tacaala qof walba xuquuq baa ilaahay siiyey ragga inaguna xaq baad ku leedihiin oo xaqiina la inkiri maayo oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam nin baa weydiiyo ku yiri dumarka iyagu xuquuqda inagu leeyihiin nabi Allah bal noo sheeg markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri hadaad cunto cuni waa inaad iyadana ay kula cuntaa hadaad dar xidhan waa inay kula xidhataa macna dhar baad iibsatay maanta iyadana xaq waxay u yeelatay inaad wax u iibisaa ma aha inaad xaafadana aad tiraahdaa soor yar iyo wax yar karsada adiguna maqaaxid intoo tagto hilibgeel aad ka cuntaa ma cadaalad baa عدالة معها والظلم واحد عنا سرير كأنه كل عنا منبي قليه سو إيه اللي بقولك وحاتر هذا النوكر يعني كي عروض يا دوغه وضع عنا واحد عني بنبي يقول حاسكاد وين كل عنتا واحد حدتنا وين يدنا وحدا ضربات قادته وين يدنا ما أنت وحوي بسا وتر هذا أنا قبل ما أنت قرن يربان قته هذا قلنا ما ركتاني هو در يركو قضى أنت ير الله كبرك عدالة هذا لو حصل هذا هنا يصدق حاسي أفر حسدوا إلى هيك وسيينا عدالة وين هذا إلى نساء كالجعيل تأذو ما هيسد وقلبكم يلبو أبدنا يا لكن حق عدالة وين هذا وقت جاجا يوحي مصاريف الريركا سي عدالة لدتك وين هذا الصيصة والرير والب وزن كيسي ميزان كيسي مقدار كأولية هي مصاريف تيسا وين لو جرابا يدنا وين للصيا إلا أصلاً تلحية على هيسية الله ووضع هيسية سكو خرج معها لكن وحل الديدن يهي إن أتنا عاد بشا وحسستنا أنا بحبسين تعال ما أقوله مد والبا مصاريف تأييدا كفلا يوبت كيك وأنا سيسا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بإلى هيري كان أرزاقه ده واسعنا أنكو بأسقنا ريره سهو واسعيه هو بالله كان كوكو ابن كوي ريننا بإلى هيري أنت أو كريا بإلى هيري حب حيو قفك بن آدم كوحو سكرين بإلى هيم بسارين به وهداد وحي يبسن وين هذو يبسا يدا هداد دلي بو نبي يقول هواك إلا إن لا يرئد بينا شريعة وين شاكته وجهك إن لقد لما لأن وجهك دو وماشى قروح ذا لقى يكته ويان إن وجهك لقد لما نبرة وين وكم وقرينا دومر كإن لقد دفتم معها إن العاينة معها إن العاينة لما أقوله عاين ابو نبي يقول حاسس كين صلى الله عليه وسلم بل آداب تدمر كالله رضق مايو شريعة دا شاكتي ننس صحابي أضيبا أويمدي رسولك إساقو إننتي سيقعنتا هيا مركاب النبي قطوسي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أكبر إننكي سعد بن الربيعها إننت يدي سدو أدي لي بلاك بوكيدي مركاب وجهو كدي لي علامات باكوت الله مركاب النبي أعرض رسولكم مالينتا وجهي ساس بدي لي شريعتنا ما سوى دقيقة كل بين بالنبي كوسو دقيقة سدوشيسا وعود أرادو أوجيو هكجرة تبولي سدو وقدفتي يدنا وقدفت تبولي مركب دقائقين سيجستين أيا صدق وحيجا إلى هاي النبي كوسو دجيي مركب النبي يقول صون نقدا ويصون نقدين مركب النبي يقول أردنا شيء وأراد الله شيئا آخر بالنبي يقول سبحان إنك ندبع سنين إلى هاي السكر ودمعي برسولك يقولي يقول دقيست يقول النبي يقول آياتنا يقول دكتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع سومهن إلى آخر الآية آية داسة مركا النبي كسو دكتي لقو عدين يو قوامة إن الرجو أيليهين هجان كرير كالرجع أيا إسكالي هجامنتا تلاد واحد كجو أي سوان نينكا حاسك ولا لا تشنكرا نينكو ناك حاسكيسا تلا ويدين كرا لكن جو أن قاد شدر أضيق أيا إسكالي ومحا إلهي قوامة الرجو واحد كهله ولا بشيء مركو هو إسكو إلهي بكلا فضل با إسكو كرتماها
isku quwad maaha isku dulqaad maaha isku caqli maaha ilaahay baa kala fadilay caza wajalla nacam dumarka ragga shiddada adayga u qaaliba halka dumarkana dabacsanaantu ay qaalib u tahay odayga iyo ragga kakanaan iyo adayg ayaa maaragtaa naxariis darro ayaad moodaa inay ragga ku jirto halka hooyaduna ilaahay qaalib uu uga yeelay inay noqoto hooyo naxariis badan oo damqasho badan oo dhibrin badan marka qawaamada raggu waxay ku heleen waa laba shay marka hore waa abuurka ilaahay baa kala fadilay bini aadanka marka labaadna baa la yidhi hee maadaama iyaku ay nafaqaynayaan reerka aqalkii iyakaa laga rabaa inay dhisaan oo dharkii ciyaalka u soo iibiyaan oo masaariifta ay bixiyaan wixii reerkaa baahi uu lahaa intay raggu dabooli karayaan raggaa looga fadhiyaa baahida inay daboolaan marka qawaamada labadaa shayba ragga ku heleen deedna ilaahay gabadhana uu ammaano wuxuu yidhi gabadha saalixadda ee suuban ee ninkeedana adeecaysa ee wixii loo dhiibtana ilaalinaysa baa ilaahay yidhi sifaadkaasaa dumarka lagu ammaanay waa saalixad way wanaagsan tahayoo ilaahaygay adeecdaa waa qaanitatoo ninkeygana way ka dambaysaayoo way ixtiraamtahay way u hoggaansan tahay waa xaafidada waxaa lagu yaqaanaa wixii ninkeedu u dhiibtay iyo reerkeedaba way ilaalisaayoo way ku fadhidaa hadday reerka ceeb ay ka dhacdana ceebta way qarisaa iyadu ma sheegto haddii ninkeedu ammaano u dhiibtana ammaanada waa u ilaalisaa markaasaa ilaahay yidhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna baa ilaahay yidhi ta aad uga baqdaan inay nagu noqoto maaragtaan tu madax taagaysa oo amar diidda inagu samaynaysa baa ilaahay yidhi sidee loola dhaqmayaa marka hadday naagtaadu amar diidda kugu samayso ma ul intoo la qaatoon baa lagu jijibinayaa may halkaa looga bilaabi maayo hadday naagtu amarkaagii ay qaadan weydo amarka ilaahayna ay qaadan weydo amar diiddana aad ka dareento reerkana inaynan wadaynin aad aragto waxaa ilaahay yidhi faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya u nasteexeeya dad hortiidan loogu nasteexayni maayo xataa marka loo nasteexaynaya islaanta maahayn ubadka dhexdeeda maaha si gaara habeenkii adiga iyadu markaad isla keliyowdaan ee qolkiina aad isla degtaan ayaad si gaara ugu nasteexayn ood leedahay xaajiyo khayr allah ku siiya baad leedahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa aad u dhaqmayso reerkeenna ma wadayso waa in ilaahay aan ka baqnaa faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya aadaabta islaamka loo sheegayaa kala dambaynta lagu baraarujinayaa alla ka cabsigaa lagu baraarujinayaa diinta lagu tarbiyadaynayaa naseexadaasaa in muddo a lagu wadayaa muddo badan haddii ay taa wax ku qaadan weyda baa ilaahay yidhi fahjuruhunna fi lmadaajici baa ilaahay yidhi jiifka uga tega baa ilaahay yidhi ha ag seexan macnaha daad doonto aqalkana uga baxmar marka qaarkooda masaajidaada iska seexo oo aqalada jaarka iska tago wixii nin dhex mara cidna ha u sheegin laakiin afka uun yar buuro iska yar aamuso aqalka markaad soo gashana iyada ha dirdiranina hablahaaga dirdirayo ubadkaaga soomaalidu markay cadhoodaan islaantii aqalka ka saaraan halkana shareecaddu waxay leedahay may ninku waa inuu ka hijroodaa baa la leeyahay gabdhaha cawradooda dibadda looma saaro ceebtooda bannaanka looma saaro aqalkay gabadhu in iska fadhiday ku asturan tahay hadday dibadda u baxdo ceebtaadiba adigaa bannaanka u saaray ogow laakiin adigaa la rabaa maadaama nin aad tahay oo islaantuna amar diidda ay kugu samaysay naseexadii waanadii muddada aad ku wadana ay qaadan weyday adigaa lagaa rabaa marka inaad aqalka uga yar tagto gogosha ayaa looga yar laga dheeraanayaayo ciyaalkaa la iska dhex seexano adaa iska khidmaysano biyahaad iska soo dhaansano dharkaad xidhanaysa adaa iskala soo baxayo oo hablahaagaad wax u diranaysaa aabba quraaca ii keeno aabba qadada ii keeno islaantu markaa waxay odhanaysaa odaygii maxaa helay aqalka ku noqonaya markaa cidhiidhi hijradaa aad ka hijrootay haddii ay wax ku qaadan weydo waa tallaabadii labaad ilaahay wuxuu yidhi wadribuhunna markaabaa ilaahay yidhi garaaca haddaba sidee loo garaaci markaa haddana mabud baa lagu garaaci hangool soo ma taqaanaan reebbay maxaa tira hangoolka ya waa isaga lawaa ha hangool hangool bay dumarka la dhacaan la dili maayo tusbaxa yar iyo cimaamada yar iyo biyaha yaroo weysadoo lagu sheedhiyo iyo ya saasaa loo tarbiyadaynaya leanna waa ubad waa ilmo yaroo kore weeyaan islaamtu sida ilmahaaga yar aad u ilaalinaysid baa la rabaa inaad iyadana u ilaalisid maxaa yeelay
tobanka cunugii aqalka kuu dhex joogta iyadaa kuu dhashay iyadaa ku tacabtay warshada laga soo saaray ubadkaasi waa caloosheedii ogow marka warshadii haddaad iska jijibisa ka waran yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin halaatin baa ilaahay yidhi daalikum allaahu rabbukum yakhluqukum ilaahay waa inagu abuurayaa meeshee caloosha hooyadiin dhexdeed waa raximka dhexdiisa fii halaata dulumaatin baa ilaahay yidhi madheerta hoosteedu waa madow raximka dhexdiisu waa madow caloosha dhexdeeduna waa mugdi saddexdaa mugdi hoostood ayaa ilaahay qofka bini aadamka kusoo dhex sameeyey marka calooshaasi taada maaha taydana maahayna waa islaan haweenayda weeyaan maadaama haweenaydu ay warshad ilaahay uu ka yeelay ubadkaagaasi lagu soo dhex abuuray ayaduna naaska ku wada nuujisay tacabna iyada uu ka galay kugu soo tacabtay kursiintooda marka ha ku santaagin ha xumaynin u sabir u dulqaado u ducee haddaad garaacaysid sidaad u garaacaysidna usluubtaasi culummadu ay sheegaan baa dumarka lagu tarbiyadeeyaa in loo nasteexeeyo qur-aanka ay noo sheega usluubta in loo nasteexeeyo la wacdiyo hadday waanada wax ku qaadan weydo in aqalka laga yar dheeraado laga hijroodo oo faraashii gogasha looga dheeraado marmarka qaarkoodna maaragtaan meelaha la iska tago laga warwareego hadday taa wax ku qaadan weydana waa in markaa la garaaco baa ilaahay yidhi dabeedna markaas ilaahay muxuu yidhi falaa tabquu calayhinna ha ku xadgudbina baa ilaahay yidhi xadgudub la dooni maayo dumarka in xaqooga lagu xadgudbo xuquuq bay leeyihiin marka saalixaad xuquuqdiina ilaahay baa sheegay bal meesha shareecada islaamku ayna dhigtay eega sida laynii tarbiyadaynayo haddii aad dembi aad samaysaan oo ragga madaxtaag aad ku samaysaan usluubta raggu ay niila dhaqmi lahaayeen ilaahay baa caddeeyo sheegay ilaahay siduu ilaahay nii jecel yahay eeg ilaahay uu xaqiina u ilaaliyey suuradan baa layniigu magac daray suurat الnisaa anagu quraanka kuma hayno suurat الrijaal laakiin suurat الnisaa quraanka waa lagu hayaa fa ilaahay tabaaraka wa tacaala hanu soo noqono han toobadkeeno ta kale waxa laynaga rabaa awlaadana han tarbiyadayno oo awlaadana waxa ku tarbiyadaynana waa maxay akhlaaqda wanaagsan ixtiraamkan baraynaa حق إلهي بانبرينا حق لبدا والد بانبرينا آيادا في سورة التحريم إلهي وكيري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آيادا سبب النزول علي بن أبي طالب مركو فسري وحيري أهل كيننا دين تبرا بكدغن تهيبوني ناتينا نار كبد بادية أهل الذين نار كبد بادية معناه هذو أهل الذين دين تبرا marka diintan ubadkeena barayna diintu waa maxay quraankan barayna xifd quraankan xafidsiina ubadkeena dadkii hore iskuulada dhigtay way dayacmeene bal intan dambe una daba qabateena ubadkeena quraanka han barno oo sunnada nabigeena han barno kaleey salaatu wasalaam oo sunnatu aada sunnada leeyda ee dhaqanka ee guryaha dhexdeeda ubadkeena han ku barbaarino sunnatu aada waa maxay jiifka aadaabtiisa han barno dharka la xidhanaya aadaabta dharka loo xidha hambarno cuntada marka la cuni aadaabta lagu cuno hambarno aqalka marka la galayo ducada lagaga baxa hambarno aqalka marka la soo galayo ducada lagu soo gala hambarno marka suuqa la marayo ducada la akhrista hambarno habeenkii marka la seexanayo aadaabta iyo ducada la akhrista hambarno ubadkeena waa inaan yaraantooda waa inaan barnaa waxyaabaha la yiraahdo sunnatu aada waa ilmuhu ku barbaara maaragtaanay adkaarta nabigeena kaleey salaatu wasalaam لأن التلابة النبي محمد ما قادم بالليلي إلا وحو قادم جري ذكر يدعو لها هدو أقل قال يدعو آخر جري هدو أقل كبح يدعو آخر سنجري هدو بيت الميقى قال يدعو آخر سنجري هدو كالصوبح يدعو آخر سنجري هدو جيفان يدعو آخر سنجري هدو طريقة مرة يدعو آخر سنجري هدو بشبلة تدعو آخر سنجري هدو سيحان يدعو آخر سنجري هدو درحران ينبي يدعو آخر سنجري هدي المدرسة النبي يدعو آخر سنجري haddii qof dhinto geeri la soo sheego duco akhrisan jiray dabayl haday timaado nabigu duco akhrisan jiray roobku markuu daayana duco akhrisan jiray bishu markay balata nabigu duco akhrisan jiray daabad hadduu fuulay duco akhrisan jiray hadduu safrayo duco akhrisan jiray ducooyinkaasi waa inaan ilmihiina ku barbaarinaa yaraanta kutubtan yar yar ee akhrista xisnul muslimka iyo ama adkaar nawawi aqalada haynoo dhex yaalaan waa kitaabka markii la alifay reer dimashq ay oran jireen
bic iddaara washtari ladkaar qofkay markii la imaamkii kitaabkii uu sannifay waa la taabacay oo maktabadda ayaa la dhigay ee kitaabka soo iibso orodoo marka qofka lagu yiraahdo ayay oran jireen dadka ducafada ee fuqaradu lacagan ku iibsanaa ma haysano markaa bay oran jireen kitaabku yuuna kaa dhammaanine daartaada iibiyo kitaabul adkaar soo iibsa bay oran jireen inagana zamankeena kutubtiiba xataa wax akhrisanayba uu sii yaraanaya mobile baa loo wareejiyay wixii oo dhanba war mobilka ma innaka la ayuhal muslim maktabada yaanan la baabi'in oo masaaxifta masaajida inoo taala yaanan laga hijroonin waxaan mobilka lagu shubay run maaha mar kaliya laga saari karaa gebigiisaba waa dagaal weeyaan laynagula dagaalamayo si shareecaddeena loo tirtiri lahaa ayaa aalaadkan loo sameeyey innagu aad leedihin khayr baa ku jira waa lagaa duubaya war wax khayr oo ku jira ma jiro aalaadkan yaa sheekh khayrka ku jira iyo sharka ku jira midkee badan sharka ku jira ayaa badan waxaad soo galaysaa masaajidan oo salaatul jumcadi ka laga akhrisanaya suuratul kahf kitaabkii quraankeena musxafkiina laga hijrooday corona intuu yimidayna waxaad maqlaysaa wadana dhan oo carbeed oo la lahaa kutubta masaajida taala ha isku taabanina oo ma quraanka ilaahay baa laga qaadaya corona inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ma quraanku waa dawe taabashadiisa dawa iska daa wax kale qaadidiisa cibaada akhriskiisa cibaada وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء بالد شفاء دواء حتى ما هو شفاء حبة السوداء يدوى دواء لكن القرآن هو شفاء ملك صافي هو شفاء شفاء هذا ما قاشوا محي لبدا شيء حنونك الله استعماله ما بتجان بالي وين بابيا ملك يا قرآنك يعني القرآن لقى هجرون وبتك قرآنك الله برو وأحاديث أقلها لقوا أخريو وسورة البقرة أقلها لقوا دح أخريو لا تجعلوا بيوتكم مقابر بنبي الذين قبورها كدقنا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة أقل كدحديث لقوا أخريو النبي يقولي أقل كشيطانكم ما سوق له وكفرحا سورة البقرة وحا لقوا أخريو كليا وبشني أفرتن دقيقة هذا بريدة مالو فريسة صدّن دقيقة كنا من سورة البقرة صدّن دقيقة أفرتن دقيقة مواجي مركوب بريبة ما كري وين القرآن آخر سنة فيسبوك ساعة الدنيا هم ندم على لقوس وجداي قلوبتي بصير لمن إنسان هذا دارت أمة قرآن كي كلافور كرلا أو آخرين كرلا أو مساجد فريسة كرلا أو دين تودي كل رقم كرلا هذا دارته وعاد دليل أتى أمة قلوبتي دي بصير لمن إنسان قرآن كأخرس كيسوا عباده أي قد يسوا عباده قادد يسوا عباده كل رقم كيسوا عباده برشد يسوا عباده قرآن كان أخرينا قلدنا قرآن كل حخرينا رنتي زمن كان قال له وزمن أدق بان قال له هديت ولا زمن أدق أو علنا لين ولدك على ما أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة صلاة دي بالهين ما أنت صلاة التباعد وحليلا أيا ودنا دي إسلام كودن لقوا صور رجي ولا أدري صلاة أساسية كوا صحيح علماء ويدية إلهي هنوصل نقول دجال بالله نقول الجراح شيء قدام شيء أقوه رأي دين دينا تبي دون تام بني بيقولوا أمانة ده قف آمن اللواي دونا قف لا آمنه تلا مدادي تلا رر لقوا آمن اللواي دونا بني بيقولي قف أمانة لو اللواي دونا شيء قدام بيه دين دينا أدواي دون تانا وصلاة بني بيقولي وصلاة ما تروح لقوا دجال ما وصلاة دي مر ليدا مساجدها كنت كنينا يا مر ليدا هذا مار ثاني كلفوا هذا سيد النبي قال سكدون أتو كذا سيد بوديستو أي أو عبادة عبادة النار هو ضبك عابد يعد عابد يا سيد أو عبادة إستان بالغلية هذول إلهي وعابد أو سيد النبي محمد إلهي هو عابد سيد صلاة هذه عبادة الله أقبلين ده قال بوين بين نقص عذا إننا كنا ما توان هرودنا ولا ليال نرجع إلى الإسلام دين تنا قصون قنينا إلهي كتاب كيسان آخر السنة إنا وحن جوز زنبيت كان كو قبسنا دين تيدا نفت هذا وا هي دين هذا وا وحال الدنيا يا ماشى ما أنت أرنتو أي مرة يسو نفتهم واينا ترى هذا لقربا دين تيدا ما واي الله الناس بس الله ينودم بداف الله ينودم بداف زادر تيد إن شاء الله أنت وبط كأنه وردة حكا كعنا حرق إلهي هنقبسنه هوين كنا ما ركتاني
سيرة الصحابيات كأخرستا مدارستا علماء أي نفرنا كحرمة قرآن كحفظية هذا حفاظ نقطان وقبل متدينة آن نقطه ذرية بركة سنبا إلهي علوش هذا كسو ساري دونا الله نقول أنفعوا أقول ما تسمعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما يا مقلب